barnaamijkani marnaba ma dhiirigelinayo jacaylka guurka ka hor. khiyaamada iyo jacaylku ma laba iska hor imanayaba. haddii uu ninku arko gabadhiisa oo khiyaamaysay amaba maya haddii ay gabadhu aragto ninkeeda oo khiyaamo ku dhacay, taa micnaheedu miyay tahay ma jecla? ma jiraan sababo keeni kara inuu ninku khiyaamo ku dhaco? ise gabadha ma habboon tahay in ay ninka daba gasho haddii ay uga shakado inuu khiyaamo sameeyey? khiyaamadu ma tahay arrin la xallin karo mise waxa weeye seeftii ugu dambeysay ee lagu kala tegayay? sidee ayay tahay inay lamaanuhu u dhaqmaan hab keensanaysa inay khiyaamada meesha ka saaraan amaba ay xal u helaan oo ay dawo u helaan, taasoo keensanaysa in jacaylkoodu noqdo mid kobca oo waara? mudanayaal iyo marweyn, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aqoonta jacaylka, kaasi ood ka helaysaan dhammaan jawaabaha su-aalaha aynu kor ku soo xusnay. maanta waxaynu ka hadli doonaa jacaylka iyo khiyaamada. inta aynaan ka hadlin jacaylka iyo khiyaamada xiriirka ka dhexeeya, ugu horreyn waxaa muhiim ah in isla fahnaan nafsiyadda ninka iyo nafsiyadda gabadha. haddii aynu ka horeyno nafsiyadda ninka, abuur ahaan ilaahay ninka waxa uu ka dhigay mid xidhiidho tiro badan leh. xidhiidhada ka xalaasha ah iyo ka xaaraanta waxa inoo xadeynaya sharciga, balse abuur ahaan ilaahay waxa uu ka dhigay ninka mid xidhiidhadiisu ay tiro badan tahay. marka ninku in xidhiidhadiisa tirada badan leh uu ilaahay ku abuuray abuur ahaan, inuu si khaldan u adeegsado iyo inuu si xaw u adeegsadaba waxa ay ku xidhan tahay ninkaas inta ay gaadhsiisan tahay heerkiisa ixtiraam, heerkiisa qadarineed, heerkiisa qanaaco iyo heerkiisa diineed. dabci ahaan marka raggu waa sidaa oo ilaahay baa ka dhigay mid xidhiidhadoodu ay tiro badan yihiin, laakiin taa micnaheedu maaha inaynu marmarsiyo u sameynayno inay raggu khiyaamo sameeyaan, waayo ilaahay baa ka dhigay wax xidhiidho tiro badan leh. marka ragga la eegayo waa mid ka mid ah imtixaanaadka adduunkan u yaala ee ay tahay inay ka baasaan sidii ay u xakameyn lahaayeen xidhiidhada tirada badan leh ee uu ilaahay u sameeyey. haddii aynu nafsiyadda dumarka eegno, nafsiyadda dumarka ilaahay waxa uu abuuray xidhiidhadooda inay noqdaan hal mid. haddii ay gabadhu hesho hal nin oo ay si fiican u jeceshahay isaguna si fiican u jecel, waxaa laga yaabaa ragga kale oo dhan inay ka maaranto. marka haddii la arko gabadh hal nin si fiican u jecel, sidoo kalena nin kaleeto ay jacayl iyo howlo noocaas ay wada wadaan, gabadhaas waxaa la idhahaa inta badan sidii dabiiciga ahayd kuma sugna marka cilmu nafsiga la eegayo, waayo waxay ka gudubtay sidii uu ilaahay u abuuray oo ah inay yeelato hal xidhiidh oo keliyaad. labaduba haddii ay khiyaamo sameeyaan waa arrin khalada, waana arrin dembiya, waana arrin weyn. inagu marnaba khiyaamada ma dhiirigelinayno, marmarsiino ma sameynayno, balse waxaynu isku dayeynaa inaynu ogaano waxyaabahan khiyaamada sababay, deetana waxaynu isku dayeynaa in khiyaamada aynu daweyn karno. haddii ay gabadhu ninka ay ku aragto inuu khiyaamo sameeyey, miyay tahay inay gabadhu ninkaa ka tagto? berigii hore jawaabaha la dhiirigelin jiray, sidoo kalena la jeclaa in la maqlaa waxay ahayd inay gabadhu ninka iskaga tagto. balse imika waqtigan aynu joogno oo aad mooday inay khiyaamadii badatay, dadku waxay had iyo goor ku dadaalaan, culimada cilmu nafsiguna waxay had iyo goor dhiirigeliyaan inaan lagu degdegin inay gabadhu ninka ka tagto, balse ay isku daydo inay arrintaa xalliso inta u horeysa. haddaba si arrintan loo xaliyo wax badan loogu ogaado, waa in la isweydiiyaa sababaha ugu muhiimsan ee sababi karaa inuu ninku khiyaamo sameeyo. waana mid ka mid ah sababaha uu ilaahay ugu sharciyey marka laga imaado inay dumarku ragga ka badan yihiin inuu ninku guursado 4 dumar. waxa weeyaan waayo abuur ahaan ayaa ilaahay waxa uu ku abuuray in xidhiidhadiisu ay tiro badan yihiin. markaynu arrintan qiimeynayno, ugu horreyn waxaynu khiyaamada kasoo qaadaynaa inay tahay mid ka mid ah ceebaha uu ninku yeelan karo. tusaale ahaan, bal waxaa isba bardhigtaa nin habdhaqan wanaagsan balse maalin kaliya khiyaamo sameeyey, iyo nin aan khiyaamaba weligii gabadhiisa ku sameynin balse wuxuu leeyahay habdhaqan xun, haddii goor gabadha wacaya aflagaado badan buu ku sameeyaa, hadduu doono gacan buu u qaadaa. labadaa nin haddii la isba bardhigo, marka gabadha loo eego waxaa laga yaabaa inuu dhaanto ninkan habdhaqankiisu wanaagsan yahay balse halkaa khiyaamo u yeeshay. marka laba bardhigo, ninkan aan khiyaamaba sameynaynin balse maalin kasta gabadha ku haya hagardaamo xagga nafsiyadeeda. haddaba waa maxay sababaha ugu muhiimsan ee sababi kara inuu ninku khiyaamo sameeyo? 7 sababood ayaa ugu muhiimsan, balse intaa way ka badan yihiin. sababta koowaad waxa weeyaan jinsiga ninka oo daciifa. mararka qaarkood ba waxaa laga yaabaa inuu ninku ka shakiyo awoodda jinsiyada ee uu leeyahay, ama maya waxaa laga yaabaa markii uu sariirta joogay inaan si wanaagsan aanay gabadha u haqabtirin, deetana uu is idhaahdo bal jinsigaaga meel kale kusoo tijaabi. tanna markaa waxay abuurtaa inuu ninku khiyaamo sameeyo. sababta labaad ee kaliftay inuu ninku khiyaamo sameeya waxay noqon kartaa baraha ay bulshadu ka wada xidhiidho. barahan ay bulshada ka wada xidhiidho sida Facebook, WhatsApp iyo waxa la midka ah, waxa ay sabab u noqdeen inay isku furmaan rag iyo dumarkii. deetana waxaa laga yaabaa rag fara badan inay halkaa dumar badan ka heleen, taasuna ay abuurtay inay kulmaan, deetana halkaa ay khiyaamo sameeyaan. marka baraha bulshada laftooduna waxa ay ka qayb qaateen inuu ninku khiyaamo sameeyo. sababta saddexaad ee kalifi karta inuu ninku khiyaamo sameeyo waxa weeyaan waa kalsooni darri ninka haysa. tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa ninku inuu asxaab leeyahay rag fara badan. ragga faraha badan waxaa laga yaabaa inay Google Drive-ka aad u yaqaanaan. marka uu dhex joogo ayaa had iyo goor waxay ku sheekeeyaan kuna faanaan, isagoo nin gabadhiisa qabo inuu dumar kalena iska wato, inuu qaar safar la galo, inuu qaar siyaabo gaara ula kulmo, inuu qaar tusaale ahaan ragga qaar baa jira qayla oo goobaha ay ku qaylaan dumar ugu yimaadaan iyagoo xaasleeya, lacag badanna weliba ku fangareeya. waxaa laga yaabaa nin ay kalsoonidu ku yar tahay inay kasoo galaan ragga noocaasi xagga raganimada oo ay ku yidhaahdaan adigu fulay baa taho raganimo ma lihid, waayo gabadh labaad ma lihid, gabadh labaad lama heshid, gabadh labaad lama safartid.
marka waxa laga yaabaa ninkaas si raganimadiisa u muujiyo bulshadana uu tusiyo inuu yahay nin raganimadiisu ay fiican tahay inay ku kaliftay inuu khiyaamo sameeyo. sababta afraad ee iyaduna kalifi karta in uu ninku khiyaamo sameeyo waxa weeye gabadha wanaagsan. oo gabadha wanaagsan sidee bay khiyaamo u sababi kartaa inuu ninku sameeyo? waxay u sababi kartaa waxa laga yaabaa ninku in barbaartiisii jinsiyad ay ka soo xumaatay. tusaale waxa laga yaabaa ninku inuu filmo la xiriiro arrintaas oo daawado deetana marka uu guriga yimaado uu gabadhii ka dalbado in ay waxyaabahaas oo kale u samayso, in tusaale ahaan ay iska dhigto gabadh kale ama wax la mid ah. marka waxyaabaha noocaas oo kale ah marka ay gabadhii wanaagsan ka diido ay tiraahdo waxaan ma samayn karo anigu, ayaa waxa laga yaabaa baahida jinsiyad ee dabada ka riixaysa ee la socota khayaalka oo maskaxda ku sawirtay inay ku kalifto inuu u raadsado meelo kale oo ku soo kafeeyo deetana uu raadiyo gabdho kale oo waxaan u sameeyo. marka taasoo kalena waxa laga yaabaa gabadha wanaageeda inuu sababay inuu ninku khiyaamo sameeyo. sababta shanaad ee iyaduna kalifi karta inuu ninku khiyaamo sameeyo waxa weeye waa wiswaas iyo shaki. sida mararka qaarkood ay u jiraan dadka qaarkood oo leh wiswaas xagga salaada tusaale ama xagga weysada oo isooran qofkii malaamad weysiisan ama ma xagga albaabka oo tusaale isleey meel albaabka ma soo xidhin inta soo jeekaranayo ayaa waxa dhacday mararka qaarkood inuu ninku yeesho wiswaas xagga jinsiga. waxa uu mararka qaar sooranaya mala gabadhii si fiican ma qancin uu ku noqonaya deetana hadana mararka qaar bismuutinayaan galmoonba uu ku noqonaya. waxyaabahaas markaa waxay sababayaan inay gabadhii ninkan ka dareento inuu culays badan ku hayo deetana mararka qaarkood dumarka badankoodu ninka noocaas way ka tagaan. marka ninkii wuxuu isku dayayaa in uu baahida dabada ka riixaysa wiswaaska jinsiyada inuu meel kale ku soo guto isiraado mala gabadhan say tahay ma ahay waxba ka khaldan meel kale ka raadi. way jiraan rag fara badan oo marka sariirta noqoto in badan jecel inay ku noqdaan balse waa ay kala duwan yihiin qofka sariirta ugu noqonaya wiswaas iyo qofka sariirta ugu noqonaya raaxo ku raaxaysanayo. marka farqiga u dhaxeeya waxa weeye kan wiswaaskiisa wax raaxo u dareemaya ma jirto balse kan ku noqonaya ee raaxada dareemaya waxa uu ku sugan yahay sidii caadi ahayd. sababta lixaad ee iyaduna kalifi karta in labada qof khiyaamo isku sameeyaan waxa weeye labada qof ee isqaba oo kala maqan. tusaale ahaan inaga dalkeena ma kala joogo waxay nagu badan ragga qurba jooga ay dumarkooda halkan joogaan dalka gudihiisa ama ragga halkan jooga dalka gudihiisa ay dumarkooda dibadda ku maqan yihiin. waxa laga yaabaa markaa baahida jinsiyada inay xakameyn kari waayaan taasna ay abuurtay in meel kale baahiyooda ay ku gutaan. sababta toddobaad ee kalifi karta in uu ninku khiyaamo sameeyo waxa weeye qofkan ama ninkan oo markii hore intaanu guursan ka hor waxa uu lahaa xiriiro tiro badan leh. marka dumaro tiro badan buu xiriiro tiro badan la lahaa. markii uu guursadayna halkii gabadh ay guursaday ayaa waxay u sameyn weydeen dhadhan iyo micno badan. marka waxay ku kaliftay ninka isaguna in uu dumarkii tirada badnaa ee uu la qabsaday uu hawshii halkii ka sii wato. toddobadaas sababood oo isbiirsaday ayaa waxa laga yaabaa in ay abuurto inuu ninku khiyaamo ku sameeyo xaaskiisa. arrintan ma tahay markaa arrin la xalin karo? haa, arrintan waa arrin la xalin karo. waxaanu kaga hadli doonaa qaybta soo socota. waxaynu ka soo hadalnay waxyaabaha sabab u noqday inuu ninku sameeyo khiyaamo. sidoo kale waxaynu soo sheegnay oo weliba aynu kusoo nuxnuxsanay inay khalad tahay inuu ninku khiyaamo sameeyo, inay tahay wax xaaraan ah haddii uu khiyaamo ku dhaco isagoo xaasleeyay. sidaa daraaddeed sababaha aynu soo sheegnay waxyaabaha sababa inuu ninku khiyaamo sameeyo waxa weeyaan inaynu isku dayno oo aynu la tacaalayno arrintan daweyn karno. marka waxaa laga yaabaa haddii arrintaa dawadeeda lala imaado in uu ninku noqdo ninaan khiyaamo sameynin nin daacadnimo badan. haddaba inta aynan xalka gelin bal aynu ka horeyno midkee ayaa khiyaamo daran, ma ninka mise gabadha? jawaabtu waxa weeyaan gabadha ayaa khiyaamo daran. waayo ninku haddii uu gabadha khiyaameeyo waxa uu khiyaamiyey oo keliya jir ahaan, balse haddii ay gabadhu ninka khiyaamayso waxay khiyaamaysay caatifad ahaan iyo qalbi ahaan intaba. gabadha khiyaamadeedu ma aha mid jirun ku salaysan balse xagga qalbiga iyo xagga caatifada labadaba waa ay khiyaamaysay ninka. laakiin ninku markuu gabadha khiyaameynayo khiyaamadiis waxay ku salaysantahay oo keliya tahay arrinta jidhka oo qura. su-aasha kale muhiimka iyaduna waxa weeyaan khiyaamadu miyay ku kala duwan yihiin raggu? jawaabtu waxa weeye haa, way ku kala duwan yihiin. nin baa laga yaabaa inuu leeyahay habdhaqan wanaagsan in bulshada laga dhex qadariyo balse halka cilada uu leeyahay waxa weeye inuu gogoldhaaf ka sameeyo, inuu khiyaamo ka sameeyo gabadhiisa. waxaa kaloo jira isaguna nin habdhaqan xun, nin tilmaamo xun, nin gabadha si xun ula dhaqma, nin hadii goor caaya, nin nafsiyan iyo jir ahaanba bahdila, nin gacanta u qaada hadii goor gabadhiisa. ninkan u dhaliilo badan ayuu leeyahay. marka waxaaba la odhan karaa ninkan ay dhaliiluhu ku badan yihiin ayaa mararka qaarkood aan u wanaagsanayn gabadha marka la barbardhigo ninkan meel kasta ka wanaagsan ee leh halka cilad ee ah inuu gogoldhaafka leeyahay. marka waa lagu dadaali karaa qofkan cilada gogoldhaaf ee uu leeyahay in laga daweeyo marka la barbardhigo ninkan kale ee boqolka ciladood ee tirada badan leh. haddaba gabadhii ayaa waxay ogaatay inuu ninkan khiyaamo sameeyo. sidee ayay tahay gabadhu inay la macaamulato? sidee ayay tahay inay gabadhu jacaylkeeda u badbaadsato? ugu horeyn intaanay go-aan gaarin waxaa muhiim ah inay ninka qiimeyn ku samayso. marka waxaa laga yaabaa inay ku daweyn karto wax la xiriiro shakhsiyadiisa. tusaale ahaan ninkan waxa weeye waa nin bulshada laga ixtiraamo. waxaad ku daweyn kartaa oo odhan kartaa maxaa sababay inaad khiyaamo samayso? waayo bulshadii oo dhan baa laga yaabaa in arrintaadan ogaato. iminka tusaale ahaan dukaan baan galay deetan markaan soo galay dadkii oo dhan way aamuseen. waxay u aamuseen kolley waan garanayaa wax kale maahay waxa weeyaan waayo waxa ay ku sheekaysanayaan adiga. gabadhu hadday ninka saasoo kale ula hadasho waxaa laga yaabaa inuu ninkii baqdin ay gasho inuu is idhaaho bulshadii sharafteed ku dhex lahayd
oo aad ka dhex weyday marka waxaa laga yaabaa inuu khiyaamadii joojiyo ragga qaarkood baa waxaa laga yaabaa inay baqdin badan yihiin marka haddii laga soo galo xagga ah war magaaladii cudurro badan baa wareegaya magaaladu sidii hore maaha haddii aad gabadh walba u tagto waxaa laga yaabaa inaad cuduradii tirada badnaa ee la xiriiray arrimaha jinsiga aad ka soo qaado cudur aids la yidhaha baa jira waxaa laga yaabaa inaad maalin dhow dhimato ninkaasoo kale haddii ay gabadhaas saa ula dhaqanto khiyaamada inuu joojiyo ayay u badan haddii uu qofku yahay qof mutadayina oo diinta wax badan ka garanaya isagana waxaa laga yaabaa gabadhu inay ku daweyso oo ay kasoo gasho xagga diinta oo ay tirahdo arrintan waa laisku cadaabiya aakhiraad dambeysa cadaab baa dambeeya iyaan lagu cadaabinay islaal iyo wax lamid marka gabadhu waxyaabaha way samayn kartaa iyada oo tibiska iyo tilmaamaha raaci karta haddii ay ciladu tahay xagga gabadhan waxaa muhiima inay isku daydo inay ninka mar walba sariirta ku qanciso inay dadaal badan la timaado waayo haddii aanay dadaal badan la iman xilliga howlgalka sariirta waxaa laga yaabaa ninku inaanu ku qancin oo meelo kale howlihiisa ka doonto dabeetana mararka qaarkood ay gabadhu sabab u noqotaba in uu ninku khiyaamo sameeyo haddaba waxaynu soo sheegnay inay jiraan raguna wanaagsan balse ay ka dhacdo arrintaa khiyaamadu marka dumarada qaarkood ba waxaa jira inay ninka canaanta ku badiyaan marka haddii ay gabadhu ninka canaanta ku badiso waxaa laga yaaba inay sii fogaado ninka wanaagsan oo marin maaha gabadhu inay canaanta ku badiso laakiin waa inay si deganaanshiyeele wax ugu sheegtaa waayo ninkan waxaa canaan ugu filan isaga oo hebela oo sharaftaa leh oo diinta yaqaana ayaa uu khiyaamaba sameeyey marka canaantu isagu iscanaananaya ayaaba laga yaabaa inay ugu filan tahay canaan haddii markaa adigu canaanta kusii badiso waxaa laga yaabaa in uu xanaaqo deetana uu kaa fogaadaba hawshiisana halkii un kasii wado marka isku day gabadh yahay inaad ninka noocaasa canaanta ku badan su-aasheeduna isweydiintali waxa weeyaan gabadhii ayaa waxay uga shakaday ninkii inuu khiyaamo sameynayo gabadhii ma la gudboon tahay inay ninka dabagasho tusaale ahaan inay mobilkiisa baadhbaadho sidoo kale ay dabagasho meelaha uu tago iyo waxa lamid su-aashan jawaabteedu waxay ku xidhan tahay gabadha haddii gabadhu ay tahay gabadh caatifadeeda iyo dareenkeeda xakameyn karta gabadh aan xasaasiyad ahayn oo aan boodo lahayn gabadh haddii xitaa ay ogaato ninkii inuu khiyaamo sameeyo aan wax walba burburinayn gabadhaasoo kale waxaa la gudboon inay ninka dabagasho inay ogaato waxyaabaha uu sameeyo dhan dabeetana khaladaadka uu ku sameeyo gabadha ay isku daydo inay mashruuc ka samayso dabeetana ay xal u raadiso inta karaankeeda laakiin gabadhu hadday tahay gabadh aan xakameyn karin caatifadeeda gabadh boodo badan gabadha caro badan waxaa la gudboon gabadha inaan ninka dabagelin waayo dhibka ka dhalanaya ayaa ka badan inay gabadhu dabagasho ninka sidaa daraadeed gabadha waxaa la gudboon mar walba haddii ay leedahay tilmaamahan cadhadeedu ah inay dhowdahay inay xasaasiyad tahay iyo wax lamid ah inaanay aada u dabagelin balse ay isku dayo in ay xalka si kaleeto u raadiso arrinta muhiimka ah ee ay tahay iyaduna in la ogaada waxay weeyaan wixii tegey lama xallin karo wixii tegey way tegeen waxaynala gudboon waxaan taagan inaynu isku dayno inaynu qorshayaal ka yeelano wixii tegeyna haddii aynu nolosheena qoyska la soo falgelino waxaa laga yaabaa in nolosheena qoyska ay burburto mar walba inaga waxaynu ku dadaalaynaa oo aynu ku wareegaynaa in aynu la nimaadno hab keensanaysa in aanu nolosha qoyska burburin in jacaylkeenu mar walba kobco sidaa daraadeed haddii ninku khiyaamo soo sameyn jiray balse xaaladda iminka taagan ay tahay inuu khiyaamada xal loogu helo waxaa muhiima uu nin awoodda la saaro xaaladda iminka taagan ee aan lasoo fiqin wixii tegey ee hore su-aasha kale muhiimka iyaduna waxa weeyaan goorma ayay khiyaamadu bilaabantaa goorma ayay bilaabantaa ninku inuu ku hamiyo inuu khiyaamo sameeyo goorma ayay bilaabantaa ninku inuu khiyaamo sameeyo sida ibnulqayim yidhi uu ku sheegay mid kamid a kutubtiisa waxa uu yidhi xumaantu waxa ay martaa 4 jaranjaro jaranjarada koowaad waxa weeye inay niyadaada kusoo dhacdo khaatira jaranjarada labaad waxa weeye inaad hamido inaad waxaa samayso alham jaranjarada saddexaadna waxa weeyaan in aad doonto waxaa oo aad la timaado go-aan adag al-iraada jaranjarada u dambeysana waxa weeye alficl oo ah inaad wixii say tahay ula timaado 4 jaranjaro ayay martaa inuu qofku xumaan sameeyo markaa si uu qofku u xakameeyo inuu khiyaamo sameeyo ama uga fogaadaba samaynta khiyaamada waxaa muhiima marka koowaad ee ay niyadiisa kusoo dhacdo inuu khiyaamo sameeyo oo ah marxalada koowaad ee ah marxalat alkhaatira oo ah inay niyadiisa kusoo dhacdo inuu markiiba shaydaanka iska naaro si ay waxaas uga yaacaan waayo marxaladan koowaad ee qofka niyadiisa kusoo dhacdo inuu xumaan sameeyo iyada waa la xakameyn karaa haddii uu qofku maraya marxalada ah inuu ku hamiyo inuu sameeyo xumaantan oo ah marxalada labaad waa la xakameyn karaa iyada lafteeda balse looma xakameyn karo si fudud marka laba bardhigo marxaladii koowaad ee ah markii niyadaada kusoo dhacdo haddii uu qofku go-aansado inuu arrintan sameeyna way adkaanaysaa in la xakameeyo marka laba bardhigo labadii marxaladood ee hore haddii uu qofku ficilkii sameeyna ficilkii uu sameeyey markaa sida ugu wanaagsan ayaa tahay qofku inuu khiyaamo uga fogaado ninku waxaa muhiima inuu xumaanta mariyo 4 marxaladood marka koowaad ee ay niyadiisa kusoo dhacdo in uu isku dayo inuu shaydaanka iska naaro si ay waxaan uga kala yaacaan marka waxa uu ka badbaadaya qofku inuu galo marxaladaha kale ah inuu ku hamiyo inuu go-aansado iyo inuu sameeyo sida aynu hore usoo sheegnay oo aynu ku celcelina mar walba waxa weeye khiyaamadu waa xaaraan waa arrin dembiya waa arrin ay tahay ninku inuu isuga fogaado balse mararka qaarkood waxaa dhacda ragga qaarkood inuu shaydaanku duursado oo ay khiyaamada ku dhacaan marka inaguna waxaynu ku dadaalaynaa bal sidii aynu u daweyn lahayn hab la xidhiidha hab nafsi ah hab keensanaysa in labada qof jacaylkooda uu kobco oo aanay saameyn ku yeelanin noloshooda qoyska khiyaamadu mar walba waa xaaraan balse waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in ragga qaarkood ama dumarka qaarkood ay ku dhacaan khiyaamo iyadoo ay keensanayso sababo kale iyagoo shaydaanku laga yaabo mararka qaarkood inuu duubso haddaba
waxay la gudboon lamaanaha isqaba si ay noloshooda qoyska u badbaadsadaan in marka hore ay isku dayaan bal inay qiimeyn ballaaran isku sameeyaan waxaan sababay qofkan kale inuu khiyaamo sameeyo deetana haddii uu ogaado qofkan kale khiyaamada uu sameeyey inay tahay mid la xallin karo waa inuu isku dayaa inuu xalkeeda gaadho haddii uu xalkeeda gaadhana waxaa u fududaanaysa qofka inuu mar labaad soo ceshado markasta oo ay lamaanaha isqaba ay si wanaagsan u qorshaystaan in aanay khiyaamo dhicin marka horeba inay ka fogaadaan sababaha keeni kara in labada qof iskhiyaameeyaan sababahan kor kusoo xusnay waa markasta oo ay lamaanuhu jacaylkoodu noqdo mid kobca oo si joogta ah u waara waa markasta oo heerka khilaafi uu yaraado sidoo kale furiinku uu meesha ka baxo waa markasta oo ubadka loo diyaariyo deegaan deganaashiyo oo ku salaysan kalgacal iyo naxariis ilmuhuna uu garaadkiisa noqdo garaad kobcsan oo kaalin kasta oo ay nolosha ka galaan say tahay uga soo baxa deetana horseeda horumarka dalka ilaahayna uu lamaanaha dhex dhigo kalgacalkii iyo naxariistii uu ilaahay qur-aankiisa ku sheegay ee uu u ballan qaaday markay isguursadeen kadib isagoo qur-aankiisa ku leh wajacala baynakum mawaddatan waraxma ilaahay waxa uu dhexdiina dhigay kalgacal iyo naxariis daawade aad iyo aad baad u mahadsantahay daawashadaada waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iido xog muhiim ah oo la xiriirta arrimaha jacaylka oo ku soo biirtay akoonkaaga qaybta aqoonta haddaba si aad u daawato xalqad kale oo ka xiiso badan xalqada aad maanta daawatay ugana faa'iidaysato xog cusub oo la xiriirta arrimaha jacaylka waxaad like garaysaa page-ka haddii aad page-ka ka daawatay amaba waxaad subscribe garaysaa channel-kan YouTube-ka haddii aad YouTube-ka ka daawato